aqoonyahanka iyo cuqaasha dhammaan dadka halkan isugu yimid iyo dhallaanba waxaan ku salaamayaa marka hore salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib waxaa farxadii ah in aan ka soo qayb galo kulankan inta leeg ee ummadda inta leeg iyo shacbigana iskugu yimaadeen inaan ka soo qayb gala ayaa i farxada. waxaa kaloo farxadii ah in arrintii aan ogaa bilowgeeda ee ahayd fikradii ka timid dhowr qof oo runtii mutadawiciina oo aad yani iskugu taxriijiyey oo ka fikiray in la helo wax lagaga badbaado masiibada dalka ee soo noqonaysa ee ragaadisay magaalada intaa leeg ee maaragta odayaal hooyooyin dhalinyar aqoonyahan culmaaudiin iyo dhallaanba waa waxay wada garan karaan. wax u baahan dadka intaa leeg iyo yani juudiga intaa leeg in la geliyaa inay tahayba uma malaynayo. waa baahi qof walba albaabka usoo joogsatay weeyaan. mas-uuladii ugu dambaysa waad ogeydeen cid alla cid wax ka qabataan la waayay indhaha lagu daawanayay. markuu iskii u dhammaaday oo ku basay ayaa maaragtaa dee dadkii iska damay isagu wey. yacni waa marar badan bay soo noqnoqotay dhibta intaa leeg oo ummadiinnu ku halaagantay oo dad iyo maaragtaa iyo dunyada ay ku waxyeeloobeen. yacni dhibta intaa leeg qof walba albaabka usoo joogsatay waxaa loo baahan yahay in laga gaashaanto. waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu istaago bulshada ka mid yihiin siduu arrintaa wax uga qaban lahaa. hadday arday tahay, hadday hooyo tahay, hadday aabbo tahay, hadday oday tahay iyo hadday dowlad tahayba. annaga horena ugu badan qaadnay ka dowlad hoos ahaan iyo ka dowlad ahaanba wixii annaga karaamkayaga ah iyo wixii halkaan kaga beegannahayba waxaanu ballan qaadaynaa inanu ka soo baxayno. malaha taayadu dowlad fududaan lahayd xafiisyada lagu sheegi lahaaye halkan waxaa loo yimid in bulshaweynta la gaadhsiiyo, bulshaweynta la fahamsiiyo, bulshaweynta la garansiiyo kaalinta ay arrintan ku leeyihiin. ummad waliba iyada ayaa wax qabsata. haddayna iyadu wax qabsan, hadday dowlad tahay, hadday aqoonyahan tahay, hadday cid kale tahayba ummadda way kaaliyaan, way garab galaan. laakiin ummaddu waxqabadku inuu iyada ka yimaado ayaa loo baahan yahay. masiibada intaa leegna waxay u baahan tahay dadaal badan, waxay u baahan tahay qof walba inuu iska xil saaro, waxay u baahan tahay inuu qof kastaa u istaago oo intii karaankiisa ahayd kaga qayb galo. ninka karaya maaragta $1 inuu $1 kaga qayb galo, ninka $1,000 karayaana $1,000 inuu kaga qayb galo, ka $10 karayaana inuu $10 kaga qayb galo. haddii bulshadu gacmaha isqabsato oo hawshan maaragta guntiga dhiisha iskaga dhigto waxaan qabaa inayna waqti badan qaadanayn. halka loo socdaana waxa weeye in ummaddani ay hesho at least ugu yaraan 2 dabdamis oo tayo leh oo ah dabdamisyada xitaa dabaqyada wax ka damin kara. maanta magaalada waad arkaysaan waxay maraysaa 2 dabaq, 3 dabaq, 4 dabaq. marka dabdamiska aan u baahannahay waxa weeyaan dabdamis ilaa 4 dabaq wax ka damin kara oo dabaqa afraad biyo xoog la ku tuuri karo ka damin kara. dabdamiskaasina qiimihiisu waxa weeyaan waa ilaa $50,000 halkii. dee laba markay yihiin waa 100 iyo wixii lagu kalkaalinayay iyo agabkiisii waxaa loo baahan yahay waa ilaa $150,000 qaaraanka la doonaya in lagu yabaaho la gaadho. waxba maaha marka loo eego yani bulshooyinka reer awdal iyo dadka boorama degani haddii ay daacad ka noqdaan maalin baa lagu keeni karaa. maalin 150,000 oo qof ka badan baa ku nool calaa $1 haddii la bixiyo maalin bay ku imanaysaa. laakiin waxaa loo baahan yahay mutadawacnimadii, waxaa loo baahan yahay maaragta in la fahmo, waxaa loo baahan yahay in loo wada guntado. guddiga halkan jooga ee hawsha soo abaabulay wax badan baan anigu goobjoog u ahaa oo hawsha wax kala soo waday. haddana waxaan diyaar u ahay inaan sii wado ilaa inta lagu guulaysanayo. juudi badan bay galeen, waktigoogii bay u hureen maaragta qof koox maaragta ilaa iyo dal iyo dibadba inay fariintan qaaraanka ee lagu iibinayo dabdamiska inay gaadhsiiyaan. maantana waa kaalkaa wadaya ee culummadii ay ku soo biirtay inay qayladhaanta intaa leeg sameeyaan, ummadda intaa leeg isugu yeedhaan. haddii la isku yeedho oo halkii waxba laga qaadi waayo macnaha la macnay samaynaysaa yeeritaan kuma jiro. waxaa halkaa maanta la iskugu sheego waa inuu noqdo waxayna gala oo aynu ficil ahaan u samayno oo berri la bilaabo oo halkaa maaragta account numberka lagu siinayo lagu sheegayo iyo sad numberka lagu sheegayo haddana aad kaga bilowdaa wixii aad awooddaada aad ku dirtaa. $1 waa lacag, 2 waa lacag, 3 waa lacag, 10 waa lacag. يعني وحي أوضع ذا كران كاغا إذا ما تكون ببادل لهي إذا نفتا تكون
badbaadin lahayd waxa lagu maanta halkan la isugu yimid maaha in wax la isku sheego oo la fahmo waa in la bilaabo saacadda imika waxaan isku sheegayno qof kasta waxa waajib ku ah inuu bilaabo intii tamartiisa anana iskaga horreysiinayo imika maaragta saadkaa wixii karaankaygaa ku shubay saacadda laga bilaabo idinkana waxaa loo baahan yahay in sidaasoo kale qof waliba isku xilsaaro oo ficiliyan arrinta u galo wayna fahanay wayna taabatay qof kasta way damaqday qof walba ha ku eegin naftaada baabaa ehelkaaga carruurtaada ganacsigaaga ee ka bilow hadda oo dir waxaad awood u leedahay si aad u badbaadiso naftaada iyo wadkaaga hadalka sii badan maayo dad badan baa iga dambeeya waxaan idinku dardaaran gelinayaa in hawshaas dhinac looga soo wada jeesto mar labaad waxaan u mahadcelinayaa guddiga culummada ee maaragta xumaan reebista iyo wanaag fadhista oo runtii juhdiga intaan leeyahay isku nimid kii hore wuxuu ahaa xafiisyo wuxuu ahaa maaragta hodheel wuxuu ahaa yani maanta waa kuwan ka weyn ummadii badankeedii way joogtaa ama bulshada qayb weyn oo kamid ah joogto iyagana waa laga mahadcelinayaa ilaahay ka jazaay siiyo miisaanka xasanaadka ugu daray dadaalkan guddiga hawshan u guntatay ee aan ogahayna waxaan leeyahay allah ka jazaay siiyo mahad keliya kuma filla ee ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waxaan ugu bishaaraynayaa hawshii ay bilaabeen inay ku guulaysanayaan ilaahayna uu naga aqbalin innaguna waxaa laynaga rabaa dadaal wasalaam